marwada madaxweynaha Soomaaliland Marwa Aamine Wari Sheekh Maxamed Shirdo oo la hadashay warbaahinta dawladda ayaa hambalyeysay ummadda muslimka iyo shacabka Soomaaliland. waa ciid mubaarak waxaan salaamayaa ummadda reer Soomaaliland meelay joogaanba ummadda islaamka ah meelay joogaanba ciid mubaarak ilaahay ciid khayr qabta ha inooga dhigo rabadaanta aynu soo soonnay khayrka lahaydna ilaahay ajarkeeda iyo xasanaadkeeda hayna siiyo haynaga aqbalo ciideedina ilaahay nabadgeliyo iyo bashbash iyo barwaaqo haynagu gaarsiiyo hambaliyaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland rag iyo dumar caruur iyo ciroole meelay joogaanba. marwadu waxay si gaar ah fariin hambalyo ugu dirtay caruurta agoomaha ah iyo haweenweynaha Soomaaliland meel ay joogaanba. caruurta hambalyo khaas baan u dirayaa wax alla wixii caruurta caawimo haday bariida tahay haday waxtar tahay haday taakulayn tahay u geeyana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hambalyeynaya ummadda reer Soomaaliland runtii halka waxaynu ku soo gaarnay waxa weeye isu naxariisashada wixistarka waayo iminka bisha Ramadaan markaad eegto meel wal oo miskiin jooga ama qof danyari jooga ama agooni joogtaba dadunba tabaruc iyo dhaqaale iyo salaamba ugu tagayay aad iyo aad baan ummadda reer Soomaaliland arinta ugu hambalyeynaya waana ducaynayaa dadkeena liitay iyo agoomaheena inaynu ka warqabnaa waa waajibina saaran ilaahay ina saaray dadnimadeenu ina saartay isku duubnideenu ina saartay ilaahayna haynoogu sii wado nabadgeliyada bashbashka iyo barwaaqada aynu ku jirro haweenkana sida had iyo jeer caadada si khaas ah u salaamaya haweenka reer Soomaaliland waa haween qaali ah waa haween aad iyo aad haduu dalkani yahay dhismihiisa iyo horumarkiisa iyo halgankiisaba door weyn ka qaatay marka amaantooda iyaga ma dhamaan karo laakiin hambalyo iyo duco iyo salaam baan u marinayaa hawada meelay joogaanba. Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.